qaado beesha caalamka hooyada masaabaha beesha caalamka beesha caalamka waa niman safiirro wadankooda la soo diray ninka hadda beesha caalamka safiirka Mareykanka wuxuu la mid yahay safiirka Soomaalida Mareykanka jooga ma faragelin karo arrimaha gudaha wadanka ma faragelin karo waad gartay Soomaaliya safiirka Ingiriiska ma faragelin karo waaya midaan safiir beesha caalamka ku sii soconaya madaxweynaha wuxuu soo saaray warqad isugu yeerayo maamulada in biri shir uu furmo maadaama la soo xeerxeeriyay muddo dheerna la soo shaqeynayo madaxda Jubbaland iyo Puntland oo hadlay xalay isaaka wax yiraahdeen casuumaadaas madaxweynaha kama iimaane beesha caalamka ka imaatay waana ka aqbalay maxay ka macno tahay gudoomiye arintan hooyada iyo caalamka sheegaysa iyo eeygi ku soo dirsaday iyo adigoo eey oo dhanba orod meeshooda uu ka wadankooda fiiraan warku sheegay anaga wadanka anaga xurriyad 3 sano aanan haysan oo Ingiriiska uu naga tagay ayaa ninkii madaxweynaha ku xigeenkii madaxweynihii Jaramogi Oginga Odinga iyo waxa isqabsaday ninka la yiraahdo Jomo Kenyatta Jomo Kenyatta wuxuu yiri wadankan waa xorbi waan xoreynay biiri gumaystahana waan ka xoreynay biiri ninka gumaystaha wali daba socda ha ugu taga wadankooda xagga dabada ha ka leef acha wallahi matako u kokow macnaheedu waxa weeyaan orod meeshaasito ugu noqo maxay ahayd qurun iyo maxay ahayd gawaad ugu noqo anaga wadanka anaga xorbo noo noqday waayahay maamulada ninka beesha caalamka beesha xamar gudaheeda kale oo la fiirinayo oo nin safiir oo kale intuu jilbaha isku dhacay bacdawra ordayo iyaga ilaalinaya meesha oo dhan inta laaba laga qaado xalana horta waxa weeyaan waa qarankay kamid tahay ciidanka Amisom-ka amar la siiyo nidaam kudi la yiraahdo wixii command and control ka hatta ciidanka Amisom inay la wareegaan dawladda Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya inay la wareegto meelaha halbowlaha oo gudahan iyaga al-shabaab inay kula dagaalamaan dibadeed ma inay Soomaaliya gudaheeda arrimaheeda dhex galgalaan oo loo isticmaalo ma mana loo isticmaali karo وهذا هدي مارتي عيدا مدي أنا ما قرنا واحد كستوى هرم عدي لواحد يمحي قرقر ويد واحد دون لك عيدا مدي قرن كصوماليات أمر هدي الله سيو ويسكيا قرينا هنمشي أو حلو بهين أمر هدي الله سيو ودن لهانتو دبكي أجنبي وماشي كوجرينا ورقد لقرا وريك تكليبه كفلا ها عبد الله فرماجو نين الله نينكي أجنبي أو كوجرا ماشن هادو اسكو سو دوان gelin way todobari gudaheed iyo wuxuu wadanka ka hayo waxa weeyaan waxaan u qaadanaynaa inuu sharci darro wadanka ku jiro inta kale ba ku filan adduunka aan ku sheegay adduunka hebel ka xoog badan ma jiro anaa ku sheegay waa dhaqan Soomaali kale iska dhaafaysa Taiwan ba u jirtaa China waxay u jirtaa halayar straight yar ba u dhaxaya Cuba ba u jirtaa Mareykanka 90 kilomitir oo maaragtay ay waxay doonto ku sameyn karo Cuba oranaysa orday xaga maaragtay Mareykanka adaa lagu yiraahdaa kiriya kud lagu oranayo waayahay gudoomiye waa maasantahay waxaan rabaa iyagu qudhooda beesha caalamka safiirka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo midka Mareykanka u joogaba hadii siyaasadda Soomaaliya ay dhexdhexaad ka yihiin tanaasulaadka uu sameeyay madaxweynaha oo adiga hadda gudoomiye aad ka soo sheekaysay intay arkaan xalka fiiriyaan soo ma qumanaan lahayn inay yiraahdaan tanaasulka madaxweynaha qaranka uu sameeyay iyo saddexda maamul gobol ee kale iyo gobolka Banaadir isku duuban labadiina ma fahmi karno ciladaha hadda jira sheeganaysaan soo heshiya madaxweynaha wuxuu joogaa filada la soo heshiya waxaad la soo heshiisaan ummadda ula soo baxa inay dhahaan miyay ahayd mise waxa qumanay sida hadda ay sameeyaan oo xalana gadaal ay ka gishtaan warheede waan kugu bilaabo waxaan ku yiri Imaaraat iyo wadan kale oo Afrikaan ah waxaan daacuftan meesha ordayso oo dhanba ma aragtay oo yeeyday waa la soo diray libaaxa soo diray waa Mareykanka iyo reer galbeedka arkaysa Ingiriiska Scandinavianska oo Norwegianka kulli waxa sii tawiyaan marka iyaga afka kuma dhawaaqayaan oo hadda waxa weeyaan xeeladii ay waligood isticmaali jireen ay isticmaalayaan laakiin dhab ahaan waxa ka dambeeya way shirka birri marka ninkii loo baahnaa inuu yiraahdo listen dhageysta yiraahdo sidan baan sameynay idinka maxay tahay afkaartiina kale hatta la doodi lahaa ما وهذا استوستان ديمقراطية نوعا هذا آيات استوستان تاعي ما هو الهشيان ما لما هشينا يو نخربان أو خلطان توج أدم هاي تقولي هاي استو ماذا بوب هاي أونلاين هاي يا بوليستي للرتينة تويدا سوق قبتي ما هشين كرتا مركا وحالات هاي هاي سعل ميسان إن لوجو شيء مركا هور represent your case لكن at the end of the day وقدام بينتي
go-aanka anaa iskale adi marid anaa leh qaranka Soomaaliyeed waa xor waa sax waay intaa keli waliba hadduu dhaho waliba he reads the rights act hadduu ku yiraahdo haddaad ku xadgudubtaan baalkii tilaabo cad oo maaragtay tii diblomaasiyada oo adduunka oo dhanba ka ahayd ayaan maaragtay ku dhawaaqay maxaa hadduu fiijiyo safiirka Mareykanka iyo ereyga maxay ahayd ergeyga khaaska kulli subax buu diri karaa wax laga qaadi karana male waa sax waayahay marka shalayba haysan baa dirtay maantana waa inuu ogaadaa in kan la dirayo hadduu tilaabo yaa siiyey horta fursadda who gave them hadda ruushkii dad kala soo galay oo yiraahdo waxna ma socon karto China waxay leeyihiin ma socon karto gardarada hal la daayo Soomaaliya laga daayo waay marka horta hadda wax laga cabsanay Security Council intii la tagay ayaa la soo qaraar Mareykan ay wataan Ingiriiska iyo Faransiiska ay wataan iyo qurunkii hore oo Afrika soo gumeystay oo soo adoonsaday haddana doonay khayraadkooda inay la wareegaan Faransiis oo doonaya inuu galbeedka Afrika wuxuu ku sameeyo Soomaaliya aan fiirin karin Macron markii ugu horeysay oo u imaado anaga wadankaana wuxuu imaado wax kale u imaan waayahay waxaan rabnaa waxaan isku haysto